ugu horeysa waxaa wasiirka amnigana siiyey amniga guud ahaaneed ee waddanka iyo magaalada muqdisho waxaa lanoo sheegay inay tababaro cusub socdaan oo lagu tababarayo booliiska Soomaaliyeed si nambarada booliiska Soomaaliyeed loo kordhiyo wasiirada waxay aad uga doodeen xaaladaha ka soo yeeray maalmahan suuqa bakaaraha wasiirka naga xaqiijiyay in ay dawladda iyo ciidanka booliiska ay aad ugu howlan yihiin arrintaasna meel la soo dhigay laakiin aysan ahayn mid laga seexan karo oo u baahan dhammaan wasiirada golaha ku jira iyo bulshooyinka magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan amniga guud ahaaneed kadib waxaa laga hadlay wasiir Khadiija waxay noo soo jeedisay isu diyaarinta xuska maalinta 12 Oktoobar oo ku saabsan maalintii calanka Soomaaliyeed la ilaamiyay waa ogtiin calanka Soomaaliyeed 1954 maxamed cawaale Allah u naxariistay macallin ayaa design ka sameeyay arrintaasna waxay u baahan tahay oo berito ku aadan in galabta iyo berito laga howlgalo si calankaas munaasabadiisii ay ku madneed loo siin lahaa kadib waxaa aad waqti badan loogu qaatay in la istusiyo dhacdadii xumeed ay masiibada ee dhacday 14 Oktoobar 2017 ee ka dhacday isgoyska Zobe ay ku xasuuqmeen dad fara badan oo muwaadiniin ah oo waxba galabsanin ay nimanka al-shabaab u geysteen qaraxii ayaa laga hadlay iyo sidii loo xusi lahaa dadkii dhintay kaliya ma ahayd dadkaas ka soo haray iyo dadkii dhibaatoobay ku naafooway oo ayagana si wax loogu qaban lahaa si dib u kabasho ay ugu soo sameyn lahaayeen qiimeynta dhibanayaasha muwaadiniinta ah in la qiimeeyo dawladana ay kaalinkeeda ka qaado waxa kaloo la xusay dadkii faraha badnaa oo Soomaalida ahaayo u gurmaday oo ilaa 4 milyan iyo bar iska soo aruuriyay oo meel walba ka timid Tanzania ilaa iyo South Africa iyo Norway deeqa naga soo gaaray waxa kaloo la xusay dhammaan dawladda iyo qaybaheeda kala duwan culamaa diinka dhalinyarada gobolka Banaadir iyo haweenka qaybta ay ka qaateen ayagana waa la xusay in la sameeyay maxaa la dhahay guurtada 14 Oktoobar loogu yeeray oo madaxweynaha ilaamiyay sidii loo xoojin lahaa ayaa laga hadlay waxa kaloo dibadda geliyay in maalintaas laga dhigo maalin qarameed oo lagu xuso inta Soomaaliyeed oo masaakiin ah ee qaraxyada kala duwan ku dhimatay kan Zobe kaliya ma ahayna inta kale oo qaraxyada Soomaaliyeed ay ku idlaatay doodaas waa dood furan oo u baahan in ay golaha ay ka sii munaaqashoodaan iyo waxa kaloo la isweydiiyay dambiilayaasha falkaas galay maxaa laga qaban karaa marka waa dood furan oo aan gunaanad lahayn laakiin waa dood ay wasiirada maanta ay soo bandhigeen isu diyaarinta iyo qorshe howleedka isxilqaan oo madaxweynaha ayimay waxa ogtiin in maktabada iyo madxafka iyo tiyaatarka Soomaaliyeed iyo istaadi Muqdisho ay aan madaxweynaha ilaamiyay in aan gacanteena ku dhisano si aan uga maaranno in mar walba aan u baahanahay kaalmo dibadeed waana wax dhici jiray oo dawladihii naga horeeyay Soomaaliya ay soo qabteen iska wax u qabsayaa la dhihi jiray haday marka bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ganacsatada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed iyo shaqaalaha rayidka dawladda ay iska wada qayb galaan waxa xaqiiq ah in ay aan dhisan karno meelaha muhiimadda inoo ah anaga ka dawlad ahaan marka jadwalkii ayaa noo soo bandhigay lacag ilaa $2 milyan oo dollar ayaa hadda diyaar u ah waxaan loo sheegay inay ganacsada Soomaaliyeed ka qayb qaadanayaan ayna soo gudbiyeen aan dawladda u gudbisay waxyaalaha u baahanay ay shamiindada iyo ay ka mid tahay ay ganacsadana ku hoolan yihiin nin kasta inuu qaybtiisa ka qaato waxaan rajaynayaa sabtidan hadda soo socota hadduu Ilaahay raalli ka yahay 13 Oktoobar inuu madaxweynaha dhagax dhigi doono madxafka Soomaaliyeed meesha ugu horeysay kadibna annaga aan jadwaleyntii sida shaqaalaha rayidka bulshada arrimaha bulshada kala duwan ay uga qayb qaadan lahaayeen jadwalka si fiican